haddii aad gool dhalisid ma sujuudi kartaa anigu caalim miihi laakiin salaba ayaanu kala qaadeynaa kow culimadu qaarkood waxay qabaan inaysan fiicnayn qofka markuu gool dhaliyo inuu sujuudo waayo waxay dhaheen nimco iyo wax weyn ayaa loo sujuudaa balse gool aad dhalisid oo gool shabaq gaaray wax weyn ma aha mana habboona in loo sujuudo ayay dhaheen culimo qaarkoodna waxay dhaheen goolka qofka uu dhaliyo waa nimco waayo qofka ayay farxad gelinaysaa marka uu u sujuudi karaa bay dhaheen qaybta labaad in labaanu kala qaadaye haddii sujuudaada ay kaa tahay ilaahay dartii oo aadna rabtid dadkan gaalada ee ku daawanaya inaad diintaada ku fahansiisid oo diintaada ku muujisatid oo diintaada ku bartid oo ku jeclaysiisid gaalada ku daawanaya sujuudda aad sujuudaysid aad muujisanaysid inaad tahay qof muslin ah haddii sidaa ay tahay way bannaan tahay waayo qofka gaalka ahba qaarkood markay gool dhaliyaan gaalnimadooda ayay muujistaan oo sidan bay dhahaan marka adigoo qof muslina ina islaamnimadaada muujisatid ayaa ka sii fiican tusaale yar maxamed saalax masriyaanka uu dheela kooxda liverpool mar walba uu gool dhaliyo maxamed saalax wuu sujuudaa baaritaan la sameeyey ayaa waxa la ogaaday maxamed saalax markuu ku soo biiray kooxdii liverpool in islaam nacaybkii boqolkiiba 18 u yaraaday goobahan oo dhan ayuu islaam nacaybkii ka yaraaday sababtuna waxay dhaheen waa sujuudda uu sujuudaya maxamed saalax mar walba markuu gool ka dhaliyo oo uu ku muujistay inuu yahay qof muslina xataa dad gaala ah ayaa ku soo islaamay maxamed saalax sujuudda uu sujuudayo oo ku muujisanay inuu yahay qof muslina marka way fiican tahay inaad sujuudid oo aad ku muujisatid inaad tahay qof muslina waayo gaaladuba waxay ku muujistaan inay yihiin kristaan oo saan bay dhahaa mar walba markay gool dhaliyaan qaarkood inaa fahantaan rajaynaya labada aan u kala qaaday diinta yaan la adkayn salaam